deegaamada Mosul hoos yimaada waxaa ka soo baxday koox khawaarij ah oo uu hogaaminayo wadaad saahid ahaa oo Saalix bin Masrix la oran jiray waana xilligii dawladda Umayyiinta uu ka talinayay Cabdulmalik bin Marwan ciidanka uu wadaadkani watay gebigoodu waxa ay ka koobnaayeen 110 qof waxa ay ahaayeen kuwa aaminsan dambiyada kuwooda waaweyn iyo kuwooda yaryarba in lagu gaaloobayo xataa dhirbaaxada ayda iyo falalka aan sii ridnayniba agtooda gaalnimo ayay ka ahaayeen boqolkoodaas mooyee dadka intooda oo kalena gaalo ayay ka aaminsanaayeen nimankani waxa ay ahaayeen kuwa aan adduun waxba u ogeyn caqiidada ay aaminsan yihiinna way u dagaalamayeen waxa ay lahaayeen khibrad dagaal iyo xirfad aad u heer sarreysa geesinimadana meel ayay iska dhigeen oo wadnahoodu barlaawe ayuu ahaa deegaamadaas ay ka soo baxeen waxa ka talinayay Maxamed bin Marwan oo ay Cabdulmalik walaalo ahaayeen maxamed markii uu ka war helay in ay nimankaasi dawladda ku kaceen sidoo kalena uu ogaaday tirada ciidankooda ayuu u diray 500 oo askari oo la dagaalanta haddana waxa uu ka dabageeyay 500 oo kale markaas ay tirada ciidanku noqotay 1000 askari waxaana hogaaminayay Cadi bin Umayra geesinimada kooxdan yar ee khawaarijta ah waxa u dheereed khidad wanaaga iyo xeeladaha cajiibka ah ee ay ku dagaalgalaan waxaana ay taasi u saamaxday 110 nin ee khawaarijta ahaa in ay 1000 askari si daran u jabiyeen firxadkiina waxa uu dib ugu soo noqday maxamedkii diray maxamed aad ayuu u cadhooday waxa uu diyaariyay 1500 ciidan gaaraya hogaamiyana waxa uu uga dhigay Khalid bin Hurra intaas kuma eekaan ee ciidan kale oo isna 1500 gaaraya ayuu diyaariyay kooxdana waxa uu hogaamiye uga dhigay Haris bin Sham'un waxana uu ku yiri labadiina taliye ciidamada kala wata kiina horgaara ayaa ciidanka oo dhan talidiisa qabanaya waxana ay ciidankaas 3000 ah ku soo duuleen ciidankii iyagu 110 qof oo kali ah ka koobnaa labadii ciidan way kulmeen inkastoo ay kala awood badnaayeen haddana dagaal ba'an ayaa goobtii ka dhacay way sabreen oo mitideen isla markaana khawaarijtii muujiyeen dhabar adayg laakiin markan waa loo awood sheegtay waxa laga dilay 70 nin halka ciidankii kalena 30 laga dilay kadibna habeennimadii ayay intii hadhay yaacdeen oo u firdhadeen dhulka Ciraaq gaar ahaan Daskara meel la yiraahdo xilligaasna ninkii ba'ana ee Xajaaj la oran jiray ayaa Ciraaq ka talinayay Xajaaj kolkii uu ka war helay ayuu u soo diray ciidan tiradoodu ay gaarayso 3000 oo askari oo uu hogaaminayo Haris bin Umayra markana kooxda khawaarijta ah ee uu Saalax watay waxa ay tiradoodu ahayd 9 nin Saalax ciidankiisii 3 madax ayuu u kala qaybiyay maalintii koowaad ee dagaalkaana waa la dilay Saalax oo ahaa hogaamiyihii khawaarijta xaaladiina iyadoo oo ay ku xuntahay ayuu maamulkii dagaalka la wareegay Shabiib nin la yiraahdo oo khawaarijta ka tirsan Shabiib xeelad dagaal oo cajiib ah ayuu dajiyay waxa ku habsaday ciidan intaas oo jeer ku soo labanlaamaya hogaamiyahoodiina waa la dilay waxana haystay cadaadisyo badan waxa uu sameeyay dib u garasho xeelad dagaal kadibna waxa uu ku eertay dhufays halka ku yaala inkastoo ay ciidankii Xaaris isku dayeen in ay dhufayska ku burburiyaan haddana waa ay awoodi kari waayeen waxana ay gubeen albaabkii weynaa ee dhufayska kadibna fadhiisinkoodii ayay dib ugu noqdeen maadaama oo uu gobolka dhacay Shabiib waxa uu soo haray 70 nin habeen barkii ayay si dib badan leh dhufayskii uga soo baxeen kadibna waxa ay mireen ciidankii oo weerar kadis ah ayay ku qaadeen weerarka kadiska ah ayay ku jabeen ciidankii Kuufa ka yimid jaanta ayayna rogeen ana uu kaasi ahaa dagaalkii ugu horeeyay ee uu Shabiib hogaaminayay guushana uu ka soo hooyay sidoo kalena khawaarijtii isaga ayay la baayactameen oo ay u doorteen inuu noqdo amiirka mu'miniinta maadaama oo ay kaligood aaminsanaayeen in ay mu'miniin yihiin hogaamiyahan cusub waxa la yiraahdaa Shabiib bin Yasiid aabihii mar uu dagaal ka qayb galay ayuu ka soo qabsaday gabadh jaariyad ah oo dheer oo aad u qurux badan gabadhan oo la oran jiray Jahiisa gabadhani waxa ay ahayd dadka dhaadhaanka lagu tilmaamo waxa uu isku dayay Yasiid inuu islaamiyo balse way diiday markaas buu garaacay inkastoo oo ay mar dambe islaamtay gabadhan uur ayay Yasiid u yeelatay markaas ayay fahmi weyday xaaladan ku soo korodhay waxa ay tahay kadibna dadkii waxa ay u aqoonsadeen in ay dumarka Carabta tahay mid ugu dhaandhaansan halhays iyo mahmahana way ka sameeyeen gabadha caynkaas ahi waxa kale oo ay ahayd turaga ka geesisan oo aad u taqaan xeeladaha iyo xirfadaha dagaalka waxaana ay ku culatay Shabiibkan oo dhashay 26 hijriyada Shabiib waxa uu ahaa nin dheer oo qurxaan ah diinta islaamka iyo caqiidadoodana cilmi badan u leh aftahamnimona ay u raacdo astaanta cajiibka ah ee uu caanka ku ahaa waxa ay ahayd geesinimo ninkani sida loo baqada muu aqoonin waa ninka kumanaanka kun ee ciidanka ah isaga oo boqol wata u barbac dhigi doona xataa waxa la sheegaa marka uu dagaalka ku sii socdo inuu iska luloon jiray isaga oo faraska dul saaran yacni cabsi warwar iyo talo dagaalka maxaad kala kulmi doontaa
kamabuu baqi jirin. Shabiib markii uu ciidankii kaga takhalusay ayuu u soo dhaqaaqay dhinacii Kuufa si uu u qabsado. Markaas ayuu Xajaaj oo firdhadkii ciidankii 3,000 ahaa uu soo gaadhay ciidan intii ka badan uu u soo diray. Shabiib markii loo sheegay ciidanka faraha badan leh ee soo dhawaaday dan iyo heelo toona kamuu gelin, bal waxa uu dalbaday in hilib iyo cunto loo kariyo. Markaas ay ciidankiisii ku qeyliyeen iyagoo u sheegaya khatar in ay ku sugan yihiin, balse muraad kamuu gelin. Kolkii cuntada loo kariyay ee uu dhamaystayna weysi ayuu doontay, si degan oo tartiib ahna uu u weysaystay. Markaas buu salaadii maqrib ciidankiisii tujiyay salaad iyaduna degan oo aan degdeg lahayn. Intaa kadibna waxa uu xidhay diriciisii dagaalka, seeftiisiina inta uu ku jeenay qaartay ayuu baqal fuulay. ciidankiisii waxay isku dayeen in ay baqarsha u diidaan oo ay faras u keenaan si uu u koro, laakiinse wuu ka diiday. waxa kale oo uu soo qaatay bir dheer oo miisaan leh. Shabiib iyo ciidankii Ciraaqiyiinta ahaa dagaal ba'an ayaa ka dhex qarxay. isaga iyo ciidankiisiiba waxa ay muujiyeen geesinimo, waxaana uu birtii uu sitay madaxa kaga dhuftay hogaamiyihii watay ciidanka reer Kuufa, nabarkaas oo uu markiiba la alaysay. inkaad kadibna way jabeen ciidankii oo dib ayay Kuufa ugu soo noqdeen. Shabiib socodkiisii ayuu sii watay, ciidamo uu jidka kula sii kulmayna agta ayuu mariyay. Xajaaj oo isagu Kuufa iyo Basra oo Ciraaqiin la isku oran jiray ka talinayay, markii uu maqlay inuu Shabiib ku soo socdo waa uu ka baxay Kuufa oo Basra ayuu u cararay, waxaana uu magaalada mas'uul uga sii dhigay Curwata bin Muqiira. kolkii uu Shabiib Kuufa u soo dhawaaday ayuu Curwa dhambaal ka daba diray Xajaaj uu ugu sheegayo in uu ninkii ku soo fool yahay. Xajaaj markan waxa uu go'aansaday in uu dib Kuufa ugu noqdo, waliba uu gaadho inta aanu Shabiib soo galin ka hor. Shabiibna markii uu warka maqlay ayuu isna soo degdegay si uu Xajaaj uga soo horgalo magaalada, balse waxa soo dheereeyay Xajaaj oo isagu magaalada casarkii soo galay. markii uu Shabiib maqlay inuu Xajaaj magaalada uga soo horeeyay, dan iyo heelo toona kamuu gelin. 12 nin oo ciidankiisii ka mid ah isaga oo wata ayuu Kuufa soo galay. waxa uu soo abaaray qasrigii uu Xajaaj ka talinayay, isaga oo cidda uu wadooyinka ku arkana dilayay. waxa kale oo uu laayay dhammaan ilaaladii qasriga Xajaaj ilaalinaysay. Xajaajna qasriga ayuu hoosta ka soo xidhay. waxa uu Shabiib isku dayay inuu galo, balse albaabkii qasriga oo xadiid ahaa ayuu dhaafi kari waayay. birtii ayuu la dhacay. markii uu inuu jabiyo ku guul daraystayna uu iska tegay oo waxa uu laayay qaar ka mid ah odayaashii, ganacsatadii iyo haldoorkii kale ee magaalada. kadibna uu iskaga baxay Kuufa. Xajaaj markii uu hubsaday inuu magaaladii ka baxay ayuu reer Kuufa qayla kula dul dhacay. dadkii oo dhan cabsi ayay ka qaadeen Shabiib, inkasta oo ay og yihiin tirayaraanta ciidankiisa, haddana geesinimadiisa iyo mintinimadiisa ayaa baqdin weyn ku riday. Xajaaj waxa uu ka daba diray ciidan 7,500 gaadhaya oo ay dhowr taliye kala wataan, kuwaas oo madax u kala socda. Shabiib nin xeelad badan buu ahaa, wuu hor cararay ciidamadiina waa ay daba rooreen. marar badan ayuu u kaarteeyay oo dagaalo kadis ah oo gogoos ah ku qaaday, waxaana uu dilay Raa'idah bin Qudaama oo ka mid ahaa abaanduulayaashii ciidanka. booskiisiina waxa uu Xajaaj ku bedelay Cabdiraxmaan bin Ashcas. Cabdiraxmaanna waa uu cabsaday, ciidankiina way ka kala yaaceen. kadibna intuu dib u laabtay ayuu Kuufa ku dhuntay isaga oo Xajaaj ka baqaya. haddana waxa uu Xajaaj booskii Cabdiraxmaan ku bedelay Cusmaan bin Qudin al-Xaarisi. kadibna Shabiib Cusmaankanna wuu dilay, isaga iyo waliba hogaamiyayaal badan oo ciidankiisii ka tirsanaa. ciidankiina jab weyn ayaa soo gaadhay, sidoo kalena qayb dhan oo ciidankii ka mid ihi Shabiib ayay hoggaansameen oo ay la baayactameen, taas oo cabsi weyn ku beertay Cabdilmalik bin Marwaan oo ahaa khaliifkii Umayyiinta. Shabiibna markan waxa uu watay ciidan aad u tirayar. hooyadii oo Jahayse la oran jiray iyo xaaskiisa oo Qasaale la oran jiray labaduba dagaalka ayay kula jireen. Qasaala waxa ay ahayd gabadh 100 nin ka geesisan. waxa ay ku nidartay in ay 2 ragcadood oo ay kala akhriyayso al-Baqara iyo al-Cimraan in ay ku tukanayso masjid jaamaca Kuufa. waxa kale oo ay sheegtay in ay rabto Xajaaj in ay la mubaarasato, yacni la isku daawado oo ay meel fagaara ah ku dagaalamaan. warkanina bulshadii ayuu aad ugu dhex faafay. markan waxa uu Shabiib doonay in uu dib Kuufa ugu noqdo si uu nidarka xaaskiisa u soo oofiyo. waxa uu warkii markana ku dhex baahay bulshadii, xataa Xajaaj waa uu maqlay 2 qodob ee ay Qasaali Kuufa u imanayso. dadkiina waxa ay indhaha ku hayeen sida uu yeeli doono. sabab kasta ha lahaatee Xajaaj Kuufa uu ka cararay oo Basra ayuu aaday, waxaana uu Shabiib soo galay Kuufa isaga oo wata kurnin, halka ay Qasaalina horkacaysay 200 oo dumar ah. waxa ay ku tukatay masaajidkii oo ay ragcaddii koowaad akhriday al-Baqara, tii labaadna al-Cimraan. mimbarkii ayay fuushay oo dadkii u khudbadaysay iyada oo caayisa Umayyiinta. halkana dacayad weyn ayaa Xajaaj ka raacday. gabayo badan ayaa loo tiriyay oo ay ku sheegayaan in uu iyaga uun libaax iyo geesi iskaga dhigo, balse gabadhan horteeda
uu ka yahay fulay. suugaantii kale ee ay tiriyeenna waxaa ka mid ahaa nafadad qasaalatu nadraha yaa rabbi laa takfir lahaa, yacni qasaala way oofisay nidarkeedii, ilaahayow adiguse ha u dambi dhaafin, oo dadku aad bay u necbaayeen. shabiib iyo xaaskiisii qasaala kolkii ay magaalada ka dandhamaysteen ayay iskaga tageen. markaas buu haddana xajaaj dib ugu soo noqday. waxa uu bilaabay in uu guubaabiyo oo uu kiciyo reer Kuufa. abaabul weyn ayuu sameeyey, waxaana uu isku dubariday ciidan uu ka ururiyey dadkii magaalada degnaa oo gaadhaya 40,000 oo qof. waxa uu ku sii diray 10,000 oo askari. markaas ay tirada ciidanku gaadhay 50,000. ciidankani waxa ay u qaashaarteen sidii ay ula dagaalami lahaayeen shabiibkan 1,000 askari deegaamada la wareegaya. waxaa ciidankan 50,000 ah hogaaminayay Cataab bin Warqaa. shabiib markii warkaa loo sheegay dan iyo heelatoona kamuu gelin. inta uu dhiirigeliyey ciidankiisii 1,000 ahaa ayuu u soo dhaqaaqay oo uu kaba hor yimi ciidankii 50,000 ahaa ee 49 jeer kusoo labanlaamayey. inkasta oo ay ciidankiisii ku qayliyeen isbiimayntanna ay uga digeen, haddana isagu go'aankiisii ayuu ku madax adeegay. waxa uu dejiyey khidad cajiib ah. waxa uu ka dhaadhiciyey 50,000 ee ku soo socda ee u badan shacab aan dagaalka waxba ka aqoon, keliya haddii hogaamiyeyaashooda la dilo in ay jabi doonaan. maqribkii ayay labadii ciidan isu soo hor fadhiisteen. shabiib waxa uu amray in la eedaamo, kadibna salaad dheer ayuu ciidankiisii tujiyey, halka uu Cataabna safayay geeshkii faraha weynaa ee uu watay. markii uu salaada dhammaystayna dagaalkii muu qaadin ee ulaa uu dayuxu ka soo baxayay wuu sugay. saqbarhkii ayuu khidadiisii cajiibka ahayd fuliyey. weeraro nidaamsan oo kadis ah degdegna ah ayuu ku gaalabixiyey qaybihii ciidanka reer Kuufa, waxaana u suurto gashay in uu dilo badiba hogaamiyeyaashii ciidanka watay ee uu Cataab taliyihii guud ee ciidanku ugu horeeyo. taasina waxa ay sababtay 50,000 in ay faraqa tiiriyaan oo ay yaacaan. shabiib qaniimooyinkoodii badnaa ee ay 50,000 ka yaaceen muu qaadan, xataa hantida ciidankiisu ay gurtaan webiga ayuu ku qubi jiray oo caqiido ayay u dagaalamayeen, manay ahayn ciidan mushahar iyo qaniimadoon u diriraya. xajaaj waxaa dib ugu soo noqday 50,000 oo ay kunini soo jabiyeen. yaab iyo amakaag ayay arrintaasi ku noqotay. si allaale si uu yeelo ayuu garan waayey. waxa uu isugu yeedhay waxgaradkii si uu ula tashado, iyagiina wax ay kula taliyaan ayay garan waayeen. mar dambe ayaa uu nin ka mid ihi ku yidhi, xajaajow ciidan midaysan oo aad adigu hogaaminaysid ninka kula dagaalan. xajaaj taladii wuu u bogay. waxa uu qayladhaan u dirsaday Cabdimalik bin Marwaan boqorkii umawiyiinta. waxaa loo soo diray 6,000 oo ah askar dhisan oo shaamiyiin ah, waxaana la socday dad badan oo Shaam ka soo dagaal tegay. xajaaj oo cadho awgeed qowlalada ka xumbaynaya ayaa u qudbadeeyay reer Kuufihii marba la soo jabinayay. waa uu maagay, canaantay oo uu xaqiray. waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin dad qofka cidmooda ee hiil weydiisa in aanu eebaba ku guulaynin. waxa uu ugu hanjabay in aanay dagaalkaas kala qayb gelin ee ay yuhuudda iyo kiristaanka la joogaan. kadibna ciidankii ayuu kaxaysay. shabiib waxa uu markan watay ciidan 600 gaadhaya. waxaa ka dhex dhacay dagaal aan waxba la iskula harin. culays weyn ayaa markan fuulay shabiib. waxa uu isku dayay inuu dhabarka ka soo weeraro xajaaj, balse ciidan gadaasha xajaaj ka ilaalinayay ayaa dhirbaaxa xun ku dhuftay. xeeladiina isaga ayay isla rogtay oo ciidan ayaa dhabarka kaga yimi. halkaasna dagaalyahano badan ayuu ku waayey oo ay ugu horreyso xaaskiisii qasaala. talo ayaa ku caddaatay shabiib. habeennimadii ayuuna jaanta rogay oo dhanka Iiraan u fakaday. halkaas ayuuna bilo joogay. xajaajna dib ayuu iskaga noqday markii uu Ciraaq ka saaray. bilo kadib ayuu Ciraaq dib ugu soo noqday shabiib, isaga oo dagaalkii dib u cusboonaysiinaya. markana aan ciidan saa u sii badnayn wata, markana ciidan badan muu wadan. xajaaj waxa uu u soo diray inan uu sadaq u ahaa oo wata 4,000 oo askari. waxaana labadii ciidan dhex maray dagaal la isku burburay. marba dhinacyo libta dagaalku u wareegtaa waa la ismari waayey ilaa ugu dambeyntii la jabiyey ciidankii shabiib. shabiib habeennimadii ayuu isku dayey webi meesha ka dhowaa in uu dhinaca kale uga wareego, balse intii uu buundada sii kor socday ayay rag ay godobi ka dhaxayso la jareen buundadii. taariikhyahanada qaar ka mid ah ayaa iyaguna tilmaama in uu faraskiisii tuuray, markaasna uu qarqoomay isaga oo leh daalika taqdiiru alcasiiz alcaliim. sidaa ayuuna ku dhintay. inkasta oo aan la hubin, haddana waxaa la sheegaa in meydkiisii la dooxay oo wadnihiisa laga soo saaray. waxa uu lahaa wadne adag oo aad degax moodid, kolka dhulka lagu dhuftana sida kubadda oo kale ka soo boodaya. hooyadii ayaa loo sheegay warka geeridiisa. markaas ayay tidhi, haddaad i leedihiin inankaagii waa la dilay, been ayaad sheegteen. haddaadse i leedihiin wuu qarqoomay, run baad sheegteen. markii islaanta sababta la weydiiyeyna waxa ay tidhi, kolkii aan uurkiisa lahaa ayaan ku riyooday dhimbiil dab ah oo iga soo baxday, taas oo dhulka ilaa cirka buuxisay. markaas ayuun baan ogaaday dabkaas in ay biyo uun bakhtiinayaan. ibnu kasiir waxa uu tilmaamay haddii uu ninkaasi aanu qarqoomi lahayn in uu qabsan lahaa dowladda oo dhan.
52 jir ayuu ku dhintay sanadkii 770aad ee hijriyada. waxa uu muddo 2 sano ah galay 20 dagaal oo uu intaba guul kala hagoogtay. cajiib daawade, ninkan geesinimadiisa ka waran. ma jira halyay kale oo adigu aad u aqoonsan tahay inuu yahay geesinimadii oo qof loo eekaysiiyay?